qolooyinka dadka guran jireen hadda waxay bilaabeen inay u tagaan Soomaalida ganacsiyaashooda sida xalaalayaasha dukaamiyaasha kuwaas oo kala duwan ee dhahayaan waxaa rabnaa financial transactions yaa ku shaqeeyo shaqaalaha lacagaha iyo waxaasayto dhan haddaad taqaanid qof ganacsadada videogan u dira ama hadda adiga tahay oo kaleeto might be beneficial horta qof hadduu ku imaado oo kugu dhaho yaa kuu shaqeeyo inta qofka kuu shaqeysa magacayaashooda keeni waxaasayto waxaan sharciyan inaad dhiibtid ma aha sharciyan inaad dhiibtid ma aha inaad su-aalo ka jawaabtid ma aha in wax oo qasab kugu ah ma jirto inaad samaysid waxna ha sameynin aamus lawyer qabso adoo lawyer haysanin oo marka lagula hadlo communicate through your lawyer adiga intaad soo istaagta ha iska hadlin ha iska daldalmin qofkana ay shaqey kan iyo ma shaqaysaanaysa waxba ha dhihin wax walba oo lagu weydiiyo waxaa leedahay lawyerkayga waa kana lawyerkaygaa la xiriiraysaa lawyerkayga ilma joogo ma hadlaayo sababtoo tahay wax walba aad dhahdid bilaa lawyer waa lagu isticmaali doonaa hadhowde naftaadaa qilqil gelinaysaa dhaqaalahaagaa qilqil gelinaysaa iyo dadka kaleetoo kuu shaqeeyaan midda kaleeto ma dhahay arrintan way jirtaa I'm not saying that at all laakiin haddii hypothetically speaking oo qof kuu shaqeeyo oo darbi kabood ah ama maqaayad laho ama dukaan oo qofkaasayta aa lacag cadaan ah siisid oo adiga dee shaqooyinka miiska hoosteeda lacagta laska sii ay tahay hadhihin qofkaasayta uu ii shaqeeya qofkaasayta waa volunteer lacagna ma siisid waa qof ku caawiyo oo cuntooyinkii waxaas ku baro laakiin waxba hadhin adoo lawyerkaaga la hadlin ani lawyer miihi lawyer advice ma ku siinaaye laakiin waxaa ku sheegaya waxyaalaha badan aa arkooyo marnoo ha hadlin adoosa lawyer kula joogin ganacsada haddaa tahay especially haddaa ganacsatada aad tahay because haddaad dhibaato keensatid ama if you get in trouble naftaada dhibaato uma keenaysid ee inta qof oo ganacsigaada ku jirta dhan customeryaashaada shaqaalahaaga neighborhoodka ku jirta 1,000 qof aa dhibaato gelinaysaa marka hal wax inaan barnaa u baahnaa community anaga waxaan ahaa waa layiri waxaa layiri yaa sameynaa laakiin maanta waxaa la joogaa maalinka la aamusi lahaa maalinka lawyeriinta la qabsan lahaa maalinka isla shaqeyn lahaa shib dheh